go'itaanka Puntland ay ka go'ayaan qorshahoodu sida uu yahay sidaynu u aragno talada aynu u soo jeedinayno barnaamijka qodobka ugu dambeeya oo ku soo qaadanayno waa qodobkaas saddexdaas qodob ayaan barnaamijka caawa ku soo qaadanaynaa jaalayaal barnaamijka noo sii sheer gareeya leegta la dhaca soona dhawaada intaanaan faahfaahinta barnaamijka u guda gelin waxaan rabaa inaad nala daawataan muuqaal yar oo laga soo duubay dagaal xalay ka dhacay magaalada Luuq muuqaalka markii aynu daawano kadib waynu falanqayn doonaa xaaladda ka jidha magaalada Luuq iyo cidda ku dagaalamayso qorshahan cidda dabada ka riixayso qasaaraha dagaaladan ay geysteen waxaad moodaa meel walba inay ka holcayso deegaan walba oo beesha Mareexaan ay leedahay in la yiri xabadha lagu bilaabaad moodaa ila daawada muuqaalkan sida arkaysaan muuqaalkan xilliga la duubay waa habeen dagaalkan xilliga uu dhacayna waa habeen waa saq dhaxawey maleeshiyaad burcada oo ay soo tababareen maamulka koonfur galbeed oo raxan weyn ah ayaa weerar ku soo qaaday magaaladii Luuq daafaha magaalada kontaroole ku yaala ciidamo ku sugnaa oo ka soo jeeda beesha Reexasan ee degan magaaladaas ayaa kala hortagay rasaas kale israsaasayn kadib waxay adeegsadeen inay soo tuuraan qoriga la yiraahdo hoobiyaha oo ay magaalada ku soo duqeeyaan nimankan raxan weyn ayay u dhasheen magaalada soo weeraray ayaan dhaweyto magaalada laga saaray oo Reexasan baa inta dagaal la galay magaalada dhan ka saaray oo ceyrshay oo meel la yiraahdo Yurkud isugu geeyay markii ay Yurkud isugu geeyeen waxaa yimid wafdi uu horkacay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo reer ahaan ka soo jeeda Reexasan ka soo jeeda iyo wafdi Mareexaankan kale isugu jira ayaa Jubbaland ka yimid waxay dhaheen nimankan magaaladan ku soo celinaynaa ammaan ba idin siinayaan Reexasan waxay dhaheen nimankan haday magaalada ku soo noqonayaan magaaladan annaga ka talina annaga hoggaanka ah ummadda Soomaaliyeed oo ku nool haday ka mid noqonayaan inta hubka dhigaan ha soo galaan oo magaalada ha ka ganacsadaan oo sidooda ha u joogaan sidoo kale waxaan rabnaa bay dhaheen in loo keeno niman ayagu dagaalka kiciyay oo dad magaalada ah oo beesha Reexasan ka soo jeeda dilay oo dhiig geystay in la soo qabtay ka codsadeen iyadoo aan dadkii la soo qaban wax xalana aan laga gaarin ayaa magaalada nimankii lagu soo celiyay qoladii Jubbaland mashruucoodii yarka ahaa bay hagaagsadeen magaaladina waa isaga noqdeen nimankii marka magaalada lagu soo celiyay waxay geysteen dilal dhowr ay geysteen dilalkii markay geysteen dhufaysiyay qoteen oo nin maan dhaweeyay la dilayo oo cagafta ninkii watay magaalada duleedkeedu dhufays ka qoday waa la dilay adugu waa laga war helo waa la dilay sidoo kale ugaaskoodii baa isna la dilay nimankii waa kaceen oo dagaal bay abaabuleen niman kale oo Reexasan ay laayeen magaaladii bay rabsho ka abuureen xaaladdu marka sidaas u taageenta marka waagi hore la heshiinayay Reexasanku iyo Mareexaanka kaleba labay kala noqdeenoo waxay dhaheen nimankaanu niman nabad u soo jeeda ma ahane sideedaba nin dhul raadinayo hadduu ninku dhul raadinayo nabad ma rabo sideedaba ninku hadduu dhul raadinayo qoladan habar gidirta waxaa laga sheegi jiray aryaa wiil waa dhashaa laakiin dhul lama dhalo wiil hadduu ka dhinto gabar baad guursanaysaa waxay ku dhalaysaa wiil bay aaminsan yihiin laakiin dhul lama dhalo nimankan marka niman dhul ballaarsi raba weeye waa niman koonfur galbeed ay dhabarka ka taagan tahay waa niman qadiyadoodu ay u adag tahay jaala Mareexaan iyo jaala Reexasan maalin walba nabad caataha la soo taagnaane nin dhul raba nabad ma rabo nimankan haday rabaan inay noolaadaan sida gabaaweynta magaalada u joogi lahaayeen sida Soomaalida kale Carab saarax leh oo cid walba leh baa degan magaalada ugu noolaan lahaay laakiin nin qori wato oo Mooryaan ah oo dadka dilayo isbaara dhiganayo de magaalada ma wada joogi kadhaan waa inuu magaalada qabsadaa oo adigu uga tagtid ama inaad adigu haysatid oo waasaw kaaga tagay noqonaysa fariintan markay iga gaarsiiyo odayaasha Reexasan iga gaarsiiyo iyo qurba joogtooda iyo dal joogtooda intaba iga gaarsiiyo Reexasanow Soomaaliya xaalad dagaal bay gashay maanta nabad lama raadiyo ee culaad baa la raadiyaa reer walba dhul uu salahayn ayuu raadinayaa
والله يصدعيا ولا يسدليا حنيي قشي حالته حنيي قشي نمان كاسو نمان نبات ربا معها نبات باد كبادي قويسان ورننا ودنا لهين ودنا لقمر راديو ودنه نن أنا لهين لقمر راديو ما أنا والبويلش أن شوف اللي أنت كيما العجاها أنت مشروعية السوقعته إن يجمعها إذا كحران nimankii cadowga ahaana gacmaha ay u furan yihiin oo aysan ka xiri karin oo aysan keeni karin maxamuud sayid ma rasuul ba maalin walba maxamuud sayid baa ku haysaan iyo maxamuud sayid baa imaanaya war qabiil gaanaatihiin odayaasha reer xasan iyo dhalinyarada reer xasan bay iga gaarsiiyeen muuqaalkan reer xasanow maanta reer nabad raadinaya ma jiro reer walba xaniyihiisu maalaya qorigiisu adeegsanaya dhul uu salahayn ayuu raadinaya waa la iskufsanaya xilligii nabadda la raadin jiray oo dadku walaalaha ahaa waa laga soo taga wadanka siyaasadaha galay dhul baa la kala dhacsanaya magaalada luuq waa xuduntiinii waa xaruntiinii in maalin walba maatadiina inta wiilal yaryar oo tuuga inta magaalada yimaadaan inay soo duqeeyaan idinkuna aad nabad raadisaan wax ma aragtay annaguna aan raalli ka ahaan karno maatada iyaduna ay raalli ka ahaanayso ma aha ilma riyaalow nin dhul raadinaya nabad lagama raadiyo nimankaasi waa duulaan xilli saq dhexe nimanka inta magaalada yimid madaafiicda adeegsanaya wariyaan ninka adeegsanayo magaalada ku duqeynayo hoobiyaha ninka ku duqeynaya magaalada madan iyo laxjacla ka taa nimanka niman cadow weeye niman duulaana weeye waa niman lacag ku soo qaatay in la burburiyo luuq in la go'doomiyo in amniga luuq in lagu ciyaaro niman lacag ku soo qaatay weeye waa niman dabada ay ka soo riixayaan ilaa koonfur galbeed iyo niman xataa maamulkan gado ku jira iyo kuwa Jubbaland ku jira intaba bay ka shaqeynayaan waraa ninka gudoomiye ku xigeenka degmada aad siisay waxa kale uu raadinayo maxay tahay waxa uu magaalada u gubayo maxay tahay wuxuu raadinayaa gudoomiyaha degmadu raadinaya degmada inuu ka kiciyo raadinaya sijaayada salka aad ku fariisatid inuu inta ka kacsada ku fariisto maaragtay raadinaya oday adeerkaya oo aan geeridiisa maqal baa wuxuu dhihi jiray waxba dhowran maynay Allah u dhagaxiyo soo daadi reerkayga waa uga dadhaa daaya nabadeed inaad tiraahdaan maalin walba maxamuud sayid baa gacmaha nugu dhegan maxamuud sayid baa yiri ha dhaqaaqinina war maxamuud sayid reer xasan oo rasuul ba maxamuud sayid ma uusan ahayn ninkan axmed madoobe u shaqeeya adeer kismaanyaha luflufto kursiga yagiibu ku fadhiyaa kiiniibu ku fadhiyaa halkaasuu jooga nin kasta oo Jubbaland u shaqeeyo Axmed Madoobe u shaqeeya ka mamnuuca luuq adeer habbaashaalo kismaayaha habbaashaalaan deeq iyo calaf iyo hiil iyo cod midna kama rabno annaga isku filan aan isku filnaano nimanka Jubbaland ka imaanayo tuugada oo nimankan maalin walba nugu soo celinayo lacagaha qaadanayo wiilashayadii waxay u dhinteen in dib loogu soo celiyo magaalada colaadii nimanka ha aqbalinina dhammaantood madax ka wada toogta nimankan Jubbaland Kismaayo ka imaanayo ee maalin walba juwaanka lacagta inta keena nimanka soo kaxaynayo magaalada keenayo dhahayo nabad baa jirta adeer nabadda jidha maxay nabadda jidho aad ka sugaysi Jubbaland maxay ninka keeni waayay nimankii mooryaanta ahaa oo luuq dadka ku laayay ninka keeni waayay oo ku soo xiri waayay ayagiina ku keenay maaduu ka adeegaya kaliya maaduu dawlad ku yahay adiga miyuu dawlad ku yahay bal fiiri maxamuud sayid nimankii aanu magaalada ka didinay oo iska fogeynay oo mooryaanta ah dib uu soo celiyo waa keen haye kuwii dadka naga dilay oo dhibaatada magaalada qalqalka iyo amni darrada ku hayay soo xirxirmal markii la yirina ma keeni karuu yiri adeer maanaw gacmaha naga xiri karaa marka nimankaas raba Jubbaland oo qandaraaska idinku soo qaatay oo maalin walba nabadda beenta ah samaynayo wardad baa dadkoodii la laayay dadkii laayayna waa nool yihiin ma la soo qabto la xiro marka nabad laga shaqeynayo waxa la rabaa dadkii dhibaatooyinka geystay dhamaantood in la toogto dadka in la isku keeno la nabdiyo war maxaad raadinaysaan la yiraahdo qolo walba la warayso laakiin nabadda ma qaatan waa qaadan hay adinkuna soo noqdo guriyihiin taga maxaa guriyihiin la tag nin aabihiis la dilay oo hooyadiis la tagay ninkii dilayna loo soo celiyay oo qori wata ma nabad ba halka ka dhalanayso nimankan Jubbaland ka soo socda ee maalin walba aad sugaysaan ee aad u yeeranaysaan qandaraas juwaana lacaga way maalin walba ninka qaataan danna kama shaqeynayaan nimankan iska cayriya nimankana iska dhacsha inshallah canaanta reerka aan canaananayay markii aan ka imaado magaalada luuq waa magaalo ganacsi waa magaalo istiraatiiji ah
ومجالة آد وقروح بدن ومجالة الصومالية وقروح بدن ومجالة الصومالية أردن لجهله ومجالة عد والبئ أي دجنت هاي أو أي نبتك دجنت هاي reer lagu dulmiyeyna ma jirto reer Soomaaliyeed waa degan laakiin magaalada dadna hoggaan bay u yihiin dadna waa ku nool yihiin nimanka reer Xasan Kaabe xudun u tahay degan magaalada ayaga ka laan dheereeya marka waxa dhacday magaaladii sida ahayd qoladii koonfur galbeed iyo qolo kale oo gala joogto iskaashatay oo Mooryaan inay amniga magaalada qalqal galiyaan sida mashaariicda si looga leexiyo mashaariicda dhibaatooyin magaalada loo curyaamiyo intaas dad baa ka shaqeynaya kuwa mareexaan leh iyo kuwa qolooyin kale leh baa barnaamijkan abaabulay marka waxaan leeyahay reer Luuq iskaashada cid walba lahaada magaalada amnigeeda ka shaqeeya nabadeeda ka shaqeeya isku tiirsanaado shaxala nimankii Mooryaanta ahaa ee magaalada soo weeraray niman cadow way ahaayeen waa nimankii hoobiyeyaasha adeegsaday waa nimankii magaalada waxa aragto rasaas ku furay ma magaalada ma maata ka taa wax ka yaala male ninku hadduu ku adeegsado fiiri ninku hadduu dharbaaxa kugu dhufto xal baa laga heli karaa laakiin lug hadduu kugu daro waxba kuma reebana dagaal baa ku ee nimanka xalay hoobiyaha magaalada ku garaacay wax dambe oo laga dhowrto iyo nabad laga raadsho anuu garan maayo mideeda kale waxaad moodaa deegaan walba oo mareexaan degan yahay dagaal baa ka socda Soomaalidii oo dhan waxaa moodaa inay mareexaankii u shirtay reer aan maanta mareexaan dagaal kula jirin mid siyaasadeed iyo mid ciidanba waxa ka jirta jareer weyn baa ka jira reer walba duula halkaan ugaadeenkii nin bay ku dileen dhinacaan Saleebaan dhinacaan Sacad dhinacaan Cayd dhinacaan Dir dhankaan leelkasaha iyo nimankaan majeerteen oo gooran fooda isdari doona aanan ogeyn baa noo nabad qabta dhinacii gedo waa ka bilaabatay tubooyinka waxa la ii sheegay niman maxay ahayd ajuuraan iyo miyahayd iyo saas iyo kuwa geel jira oo mareexaan oo isku dagaalay meel walba oo mareexaan dego waxaad moodaa xabadaha laga bilaabay in la yiri meel walba ka qiiqaysaa war waxaan leeyahay tolkayow war isdiyaariya war Soomaaliya nabad ma jiro war colaad baa la aaday Xasan Sheekh qabiiladii buu hubaynaya ciidankii federaalka la burburiyay hadda hubkii laga keenay Masar galgaduud baa la keenay maanta galgaduud meel walba waa ka holcaysaa maca habar gidirtii baa maanta isdagaalaysay Saleebaan iyo maanta waxa is dhameeyay oo aagan galgaduud isku dagaalay nimankii la oran jiray reer gaalkacyo Sacadka ahaa baa isdagaalay meel walba waa ka qiiqaysaa marka maanta lama jiifsado ilaahay colaadaha iyo dhibaatada wadankeena ka jirta ilaahay naga saaro waxaad moodaa in akhirsaban la galay in la yiri Soomaalidu inay ku ballantay annaga isdhamaynayna annaga iskeenayno yaana la kala qaban baa moodaa in lagu ballamay intaas aan uga gudbayaa xaaladda magaalada Luuq iyo ma aragtay xasaradaha ka jira iyo halkaas aan uga gudbayaa qodobkayga labaad waa magaaladii Kismaayo iyo shirarkii ka socday dawladdu horta waxay juhdi dheer ku bixisay sidii Axmed loo soo celin lahaa Axmedna hadduu dhagaha laabto cid soo celinaysa male shalay waxa la joogay ninkii James Iswaan baa la joogay oo qaramada midoobay baa la joogay wuxuu ku yiri niyow aan ku cisho meeshii Muqdisho ahayd shirki ka qayb gal sidoo kale Axmed wuxuu kala hadlay ciidankan Itoobiya ee la yiri gada waa laga saaraya lagama saarayo yiri waa joogaya sababtoo ah amniga gaday ka shaqeynaya sidoo kale wuxuu yiri anigu xamar kuma noqonayo doorashan qabsanaya adigu way isfahmi waayeen ilaa caawa laga yaabaa inay wax soo saaraan xiliyada dambe ilaa biri baa laga yaabaa laakiin wax isfahana oo dhex maray ergadii ugu dambeysay ee Xasan uu soo diray ma jirto iyo Axmed Midoobe waxaana laga yaabaa biri maamul goboleedyadu inay iska kala aadaan maamuladooda la iska fasaxo ama ay wax soo saaraan sidoo kale waxa la ii sheegay hoolkii doorashada ee magaalada Kismaayo in lagu boobay riinjiga oo la riinjiyeynayo goobihii doorashada ay ka dhici jireen oo dhan diyaarin baa ku socota waa la riinjiyeynaya Axmed Midoobe waa diyaar garoobaya beelihii buu qaar la kulmaya xildhibaanadii nikeensada iyo gudiyadii ayuu diyaarsanaya goob kasta oo doorasho ay ka dhacaysay gurigii gudiga xaruntii doorashada hoolkii wixii oo dhan waa la riinjiyeynaya waa la boor qaadaya waxay u egtahay Axmed inuu u diyaar garoobay doorasho ayay u egtahay iminkana qodobkayga ugu dambeeya waa Warsangeli iyo magaaladii Baran ahayd maanta maxaa ka dhacay maanta Baran dagaal baa ka dhacay dhex maray ciidamadii Puntland
iyo kuwii maakhir state rabsho saacado badan socotay ayaa ka dhacay kadib markii gudoomiyihii maaragtay maakhir state uu yiri magaaladan gaaraya qoladii Puntland oo doonaysay inay celiso shacabkii oo kacay xaalad kacsan baa ka jira magaaladii Baran ahay Baran waa magaalo yar oo aad u qurux badan waxa ku taala jaamacadii ummadda waxa la ii sheegay rasaastii la ridayay inay jaamacadii ummadda gaadhay jaamacadda ummadda Puntland Baran kaliya ku taala dad Soomaaliyeed oo meelo badan ka yimid ayaa maaragtay dhigta oo maaragtay wax ku barta waa magaalo nabadeed waa magaalo aan culaadu ka dhicin waad maqlayseen kuwa warsangali oo ku haya Allah hoogayo baaya waa dhint hoogayo waa dadan wali xabad arag magaalo nabdoon oo barwaaqo ay ka jidho oo aan qof lagu dilin weey maanta dagaal yar baa ka dhacay buuq yar baa ka dhacay marka waxaan rabaa tolkay inaan tala siiyaan rabaa tolkay inaan tala siiyo ninkuma culaadinayo waana ku faraxsanahay inaad masiirkiina adinku inaad ka tashataan inaad ku hamisaan waa arrin wanaagsan cidda idin talinaysana adinka go'aan leh marka waxaan leeyahay nimayo Puntland waxbaad ka leedihiin xuduntii Puntland baa tihiin meel maanta aad Puntland ku doorsataan ma jiro mashaariicdii iyo laamiyadii ayaa idin socda laakiin Puntland hadaad ka tageysaan wada idin furan hal wada idin furan nimanka walaalihiina reer maaragtay SSC intaad aragteen oo wiilal ay ooga dhinteen oo maaragtay iska xoreeyo balaayadii iska dulqaaday oo xujada looga dhigay warwalaalayaal keena walaalihiin warsangeli ama gobol ama haaf keensada oo gobolka wax ku soo darsada la yiri oo maamulkoodii uu dhaqaaqi waayay nimanka shuruudda u buuxsho oo ka mid noqdo oo maamulkiina ku soo biira ayaga idin raba oo gacmaha idin taagayo oo idin baahan hal tusaale idin siinaya marka maanta haddaad xoraysataan oo deegaankiina aad xoraysaan deegaankiinu waa gobol ama waa ka sii yariya waxaad u baahan tihiin inaad heshaan gobol kale ama bar adinka kaligiina maamul ma noqon kadhaan waa ogna sababta anigu waan ogahay intii mahayguna kuwaan yihiin afkaygina inuu kan yahay anoo og inaan is-indha tira maaha hadda maanta haddaad deegaanadiina xoraysaan waa inaad heshaan deegaano kale ood wax ku darsataan ood maamul la noqotaan cid kaligeed istaagaysa ma jiro ilma yaryaal waxaan idin leeyahay marka haddaad horta xabad rabtaan inaad bilowdaan ceergaabo ka bilaaba Somaliland iska xoreeya nimankan walaalihiina oo aad isla degan tihiin oo ilaa Boosaaso iyo ilaa bari aad isla degan tihiin niman aad kala go'i ka dhaan maaha niman aad culoobi ka dhaan maaha niman yow marka haddaad rabtaan inaad deegaan xoraysaan oo wiilal aad dishaan oo aad dagaal gashaan oo jihaadaan ceergaabo noo xoreey oo xabad ka bilaaba reer Puntland iyo reer Qaatumo waa inii hiilinayaan marka taa xoraysaan waxa la yiri cadka kaaga jira shisheeyaha fiiri ba la xoreeyaa sidoo meesha aad cabsida ka qabtid yaa loo hormaraa nimankan ma jeerteen oo walaalihiina waa wiilashiina hadda waxa meeshaan isku leeynaya macaa ma jeerteen ma waa niman warsangeli oo cabsan Puntland iyo niman aan cabsanayn weey wax islaynay ma jeerteen ma jiro meeshaan ma joogo nidaamka Jubbaland ma jeerteen ma nidaamka aan dhahay Puntland ma jeerteen ma waa nidaam ay ka tirsantiin idinka wax ka dhistay niman yow marka inaad nimanka walaalihiina oo idin baahan inaad buuxsaan waxaad ogaanaysaan adinka maanta haddaad xoraysataan deegaanadiina maamul cid u aqoonsanaysa ma jiro sababtoo ah kuwii idinka dhul badnaa ee reer SSC oo xoraysto dhiigga u daadshay yaa maamul noqon waayay waa inaad shuruudaha maamulnimada buuxsaan tusaale yar baan idin siinayaa anigoo halkaa jooga oo shaax ii karsamahayo oo biyuhu ay ii karkarayaan oo sokorti ku daray oo ma aragtay riinjiga iga dhiman yahay yaa nin riinji wata ii markaasaan idhi walaalow ma aragtay riinjiga iigu dar biyahan sokorti iyo wixii waa ku darsaday shaax ay noqdaan haddii aan biyahaas karkarayo ee sokorta lagu daray aan riinji loo helin shaax ma noqonayaan ee biyo la sokoreeyay bay noqonayaan moogta markaasuu inta diiday uu yiri ma ku siinayo riinjigayga amba waa karsanaya xaggu inta tagay oo dab shitay yu riinjigiisii karsada ogow asagu sokor ma haysto aniga riinjigii baa iga maqan marka asna caleentiisii buu cabay oo shaax ma cabin anna shaax ma cabin biyihii sokorta lagu daray baan cabba
haddii aan marka inta midowno aan shaaxa iyaga isla karsanno uu riinjiga igu darsado asna koob shaax u cabbi lahaa oo shaaxi caadiga ahaa anna koob shaaxaan cabbi lahaa in wax la isku darsado wanaag bay leedahay nimayow marka warsangeliyow in dhiig la daadsho oo dad la xoraysta deegaankiina idinkaa leh cid maanta ceelgaabo idinku haysata ma leh cid maanta baran iyo buraan iyo hadaaftimo iyo waxaasoo dhan idinku haysta male idinkaa leh waa deegaanadiinnii waxaa nili ka rabaa marka inaad fikirtaan haddaad deegaanadiinna harti aad la dekanowdaan ood xoraysataan ood iska cayrisaan maamul ma noqon kadha waa maya kuwii idinka horreeyey baa noqon waayey laba shardi baa marka idiin furan haddaad marka qaatumo ku biidhaan dekadihii baa idiin dhismayo awood isbuuxisaad noqonaysaan ceergaabaad xoraysanaysaan ciidamo isku dhafaa helaysaan laasqoray baa dhismayso oo dekad ah tusaale hadda fiiri inta harti iska cayrisida xataa laasqoray haddaad dhisatid oo dekad ay ku noqoto yaa isticmaalay adiga dhulbaanta markaa isku xirataan ilaa laascaanood iyo ilaa deegaanada dhulbaanta iyo ilaa maaragtay muxuu ahaa meeshaan dowlad deegaanka waa la isticmaalaya marka waxaan leeyahay ilmaada riyaalow dadku waa wada dhashay yaan la isnicin ree warsangeli saldanadii baa tihiin niman maaragtay daarood usoo telin jiray baa tihiin niman dad fiican ay ku jiraan baa tihiin anigu idinma nibci laakiin wanaaggiinaan jecla niman yahow ama nimankaa walaalihiina oo ree SSC oo dhiigga u soo daadshay maaragtay maamulkooda ku biira oo weliba marna madaxweynaha qaata marna ayaga siiya ama adinkuma caasimadda qaata ayagana madaxweynaha siiya maamul goboleed maanta waa caasimad haddaad caasimadda ka heshaan waaba alxamdulilah marka nimankaa inaad wax la qaybsataan ama nimankii aan walaalihiin ood la joogtaan inaad la joogtaan waxyaabahan calamadan meelaha lala ordayo macna ma samaynaya jaalayaal waa idin salaamay muuqaalka noo sii sheergareeya leeg la dhaca waa mahadsantihiin